haddii wadnahayga la jeexo oo qayb laga jaro jidhkayga jabkii soo hadha xabiibi jacaylkaagu xusayahay soo jeedsiga daymadada dhankayga markaad jaleecdo wadnaha joog yiraahda xasan cod ayaan oran karnaa waa hees cusub oo si talantaali iskula soo qaadeen fanaanada Kin Jaamac iyo saygeeda cusub ee Maxamed Alta balse maxay dareemaysaa fanaanada ay hore u kala tageen Maxamed Alta ee Hodan Cabdiraxmaan shaaf laga deeniyo nooc dadka noocayana in la iska qabto oo fanaanada dhexdooda iska qabtaana waa muqaddis haddii la iska qaban waayo Soomaa saasay baasho soconaysa anu sanadkan isaga leey 100 sano hadii ka soo wareegto noolahooda ma nooshahay meesha aan kugu arkaan waan kugu jira tagay taa xisaabta ku qoro ama wallahi oo billahi hatta hadday lacag noqoto inaan ku bixiyo qofka ugu horeeya nolosheeda qof inaan dhibaateeyo isku madayn laakiin ninka ugu horeeya ee aan adduunyada aanan deynin inta nool ee hadii ay noqoto 100 sano ka soo wareegtaan aan ku jira tagay taa hadaba ama caytan ama waxaad rabto samee qofka ay Hodan Cabdiraxmaan u hanjabayso oo dil ugu hanjabayso waliba hadii ay awood weyso ay sheegayso in dad u adeegsanayso waa saygeedii hore Maxamed Alta oo haddana gursaday fanaanada Kin Jaamac sida arkaysan la soo qaaday hees talantaali aad u qurux badan waxaad isweydiinaysaa maxaa ku kalifay Hodan Cabdiraxmaan inay xilligan u soo jawaabto saygeedii hore ee Maxamed Alta balse marka hore fadlan daawad hadii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf kaaga codsanaynaa inaad channel-keena Barbaaris Media aad subscribe saarto calaamada gambeelka ahna furto sidoo kale videoga like saarto mahadsanid fanaanada ku soo caanbaxday inay kala geyso lamaanaha isjecel ee Hodan Cabdiraxmaan oo hore aad u ogeyseen inay ninkeedii ka dhacday fanaanadii masaakiinta ahayd ee Qatar Saliima ayaa hanjabaad dil ah ugu soo hanjabtay fanaanka Maxamed Alta iyadoo oo sheegtay hadii ay iyadu dili weyso inay waliba u adeegsanayso waxa loo yaqaan gangiska ama Soomaalidu dhahaan mooryaanta oo lacagta ku qaatay inay dilaan dadka hanjabaadda Hodan Cabdiraxmaan ayaa ku soo aadaysa xilli fanaanka Maxamed Alta oo wajahayo nolol cusub oo xiriir jacayl la sameystay fanaanada caanka ah ee Kin Jaamac Hodan Cabdiraxmaan sida hadalkeeda laga dareemayo waxa ay sheegaysaa in uu soo caayay Maxamed Alta balse ma ayna arkin mana jirto meel uu ku caayay Maxamed Alta oo aan ku aragnay ma ogi inuu si bareefada u wadaagay balse waxay u agtaa warkeeda guud marka la soo koobo wuxuu og yahay in ay ka xanaaqsan tahay nolosha cusub oo sameystay Maxamed Alta waayo hore uma aysan jirin wax khilaaf oo ka dhaxeeyay bal iska dhaaf xataa xilligii ay kala tageen Maxamed Altana kama uu hadlin ayaduna kama aysan hadlin balse hadda waxay u agtahay inay ka maseersan tahay xiriirka jacayl ee uu yeeshay Maxamed Alta waayo hadalkan wuxuu ku soo aadayaa xilliga ay xiriirka jacayl sameysteen fanaanadan Kin Jaamac iyo Maxamed Alta fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa sida caadiga ah lagu yaqaanay inay barnaamijyadan kala ka hadasho sidoo kale ee dadka masaakiinta ka dhacdo nimankooda waxa la sidoo hore loo ogay in fanaanada Qatar Saliima ay ka dhacday ninkeeda oo ay ilaa ay 3 carruur isku hayaan hanjabaadda Hodan Cabdiraxmaan wali kama uu soo jawaabin Maxamed Alta wax warana kama uu soo saarin Maxamed Alta ayaa sida caadiga ah lagu yaqaan aad u afgaaban oo aan dadka xaxagan sidoo kalena aan ahayn dadka fowdo jecel sidoo kale fanaanada Kin Jaamac oo odageeda la soo hanjabay iyaduna wax warka kama soo saarin mana aysan ka soo falcelin hanjabaadan qayaxan ee Hodan Cabdiraxmaan waayo waa lamaana cusub umana baahna buuq iyo qaylo waqtigan waxa ayna xaaladooda ku sugan tahay soo jeedsiga daymadada dhankayga markaad jaleecdo wadnaha joog yiraahda soo jeedsiga daymadada dhankayga markaad jaleecdo wadnaha joog yiraahda isku soo wada duubo lamaanahan waxay ku jiraan nolol farxad leh iyo raaxo bilow ah balse waxa la yaab leh Hodan Cabdiraxmaan waxay ka faa'iideysaa hadda inay kala geyso lamaano cusub oo ay buuq ka dhex furto waayo iyadoo markii Maxamed Alta ay ka tagtay Maxamed Alta buuq ma soo furin markii ninka masaakiinka ay naagta masaakiinta ay ninkeeda ka dhacday kama soo hadlin Hodan Cabdiraxmaan hadda nin la'aan maahan oo Mursal Muuse haystay xoog ugu soo wareegtay ninkii naagtii hore u qabay maxaa ku kalifay marka Hodan Cabdiraxmaan xisa buuqan markasta taagan ka faa'iida oo ugu hanjabaysa mid kale qofka qaab kala loo hadlaa qaab kala aan dadka wax lagu sheegaa inay dhahdo waan ku dilaya oo waliba gangiisan ku adeegsanaya iyadoo waliba wadan sharci ka timid maxaa ku kalifay Ameerika ka timid Ameerikana qof dil ugu hanjabay qof waa la yaqaan sharcigiisu waxa uu yahay dabcan markasta waxa fiican lamaanaha cusub la tixgeliyo haddana Barbaaris Media waxaan leenahay
buuqa laga dhaafo lamaanaha fadlan daawaday haddii aad nagu cusub tahay channelkeena Barbaaris Media subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo sidoo kale video like saar waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodkeena waxaan idin ballan qaadaynaa markasta inaan soo gudbi doono insha Allah barnaamijyo iyo xogo in ka qorsoonaa waa mahadsantihiin